kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ciyaaraha waxaana barnaamijkeena toddobaadkani marti noogu ah ciyaaryahan hore Mustafa Cismaan Axmed Mustafa Indo oo imika muddooyinkii ugu dambeeyay soo gudbinayay dhacdooyinka ka dhaxdhaca garoonka Hargeysa Stadium. Mustafa ku soo dhaw True Cable TV. waad mahadsantahay Cabdi Khadar aad iyo aad baan u salaamayaa bahda True Cable TV waana ku mahadsantihiin waana dhawahay aad iyo aad mahadsantahay Mustafa badanka waxaad ka mid tahay daawadayaasha sida tooska ugu taxan horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa waxaad dadkaasi kaga duwan tahay inaad soo bandhigto dhacdooyinka ka dhaxdhaca gudaha garoonka Hargeysa Stadium haddii ay noqoto qaladaadka ka dhaxdhaca horta goorma ayaad bilowday inaad soo bandhigto dhacdooyinkaasi walaal dhacdooyinkan waxaan bilaabay markii ugu horeysay xeerkan horta la bilowday muxuu ahaa horyaalkan imika la qabtay heerka koobaad bishii labaad baan filayaa meelahaas ciyaartii ugu horeysay goodir iyo waxa wada ciyaarayay wasaaradda hay'adda madaarada ama xidigaha cirka ciyaartaas waxa dhacday gool uu dhaliyay Cabdi Waduud oo assistant-kana lahaa Cabdi Casiis Qocle ayaa waxa dhacday gool cad buu hayo ninkii weerarka hayo halka dambe ka xiga kubadii ayuu baaska u dhigayaa marka offside sinaba kuma noqon karso goolkii kadib uu dhaliyay nimankii difaaca ka ciyaaraya gacanta taagay calaamadiina sidii offside ku dhigay marka taas horta ay ku dhalisay kulankii ku xigayna waxa isla ciyaarayayna sidoo kale hay'adda madaarada iyo waxa ciyaarayay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo gool ninka difaaca ah oo xagga dambe xiga oo kubadii rabay inuu iska saaro ayaa ku dhacaysa difaaciisii u jiray weerarkii wasaaradda horumarinta caafimaadka qaadanaya uu dhalinaya isla offside bay dhahdeen marka labada dhacdo ay ugu dhalisay sidii baan ku wadi waa tahay Mustafa dhacdooyinkan aad soo bandhigaysa marka dadka page-kaaga booqda oo aniguba kamid ahay dhacdooyinkan aad soo bandhigaysa waa dhacdooyin xaqiiqo ah oo ka dhaxdhaca garoonka Hargeysa Stadium waxa la oran karaa Mustafa intaan horta ku weydiinin aqoonta aad u leedahay garsoorka waqti intee leeg bay kugu qaadataa inaad soo bandhigto dhacdooyinkan waa 90 daqiiqo ciyaartu wax laga yaabaa inaad tiraahdo daqiiqadii 49aad imika waxaan arkayay kulankii dhaxmaray toddobaadkani goodir iyo waxool oo kale daqiiqadii 49aad waxa offside sida ka muuqatay page-kaaga bartaad ku baahisay inuu sakriye iyo kubad uu qaadanayo aad soo geyso leedahay waa offside marka intee leeg bay kugu qaadataa inaad dhacdooyinkan soo bandhigto horta waxaan ka bilaabaa ciyaarta waan la bilowdaa bilowga casarka markay soo gasho ilaa dhamaadka waan la daawadaa ciyaarta marka wixii qaladaad ka dhaxdhaca garoonka dhexdiisa mirarkii ayaan eegtaa mirarkaas waliba ciyaarta tan ka shakiyo waan calaamadsadaa mirarka 49aad mirarka 50aad adigu waqti wixii uu dhaco ciyaartu marka kadib ay dhamaato ayaan dib ugu noqdaa kadibna soo gooyaa saasana ku soo dhigaa mirarkana waan calaamadsadaa waa tahay Mustafa waa qisooyin cajiib ah soo bandhigaysa waxa la oran karaa Mustafa ma waxa uu helay in uu tababar u helo inuu garsoor noqdo mise waa jacayl uu qabo kubadda cagta horta kubadda aad loo xiiseeyo daawashadeeda iyo ciyaaristeedaba wax garsooro tababar dhigtay inta iska komanka dadku garanayaan mooyaane intaas baan anigu aan ku dabaqaa walda waa iska wada macruuf kuleeyo uma baahna waa iska wada macruuf saan filayo wixii aan ka shakiyo ama shaqada waxa ku jira muranna ana soo baara ama cidiga khibrad badan baan la tagaayo weydiiyaan ku dhaw taa ka warama oo iga aqoon roon laakiin intaan garanayay intaan aan ku soo dhex jiray kubadda cagta waan daawan jiray waan ciyaari jiray intaan aan aqoon lahayn baan ku qiyaasan ku bees karaya waa tahay waxaynu imika si toos ah u gudagali doonaa kulankii ugu dambeeyay ee la ciyaaray horyaalka heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa oo toddobaadkani dhaxmaray goodir iyo waxool bal kulankaasi dhacdooyinkii aad u arkaysay inay ahaayeen qaladaad ee ka dhaxdhacay garsoorka nala wadaag anaga daawadayaasha horta ciyaartaasi ciyaar waxay ahayd ay labada kooxdood ciyaareen saas sheegtay goodir iyo waxool mirarkii 49aad ayaa waxa dhacday kubad dheer ayaa loo tuuray weeraryahankaas sheegayso kubadii uu qaatay chance wanaagsan waxay ahayd 1-1 gooladu kula kulmayay si fiican offside buu laakiin nasiib darro dhigay inkii calaamadaha ahaa offside buu dhigay laakiin sidii goolkaasi offside mu ahayn say la tahay chance kaasi uu jeedaa oo wuxuu ahaa chance hadii uu sii wada lahaa ninka weeraryahanka oo offside ka lagu qaban khatar gelin lahaa ama gool buu noqon lahaa ama adu chance fiican buu ahaan lahaa laakiin offside bay dhigeen dhacdo labaadna waxay ahayd mirarkii ilaa 70aadkii ayaa waxa dhacday penalty ka dhaxdhacay meesha penalty-ga ayaa waxa ka dhaxdhacay record qalad baa ka dhaxdhacay garsoorkuna wada arkay
calaamaduhuna wuu u dhawaa ka kale garsoorka dhexna wuu u dhawaa marka aniga waxay la ahayd inuu penalty ahaa penalty-gana lama qaban marka dhacdadii u dambeysay labada dhacdo kaliya taa ayaan arkay tu kala jirtay offside ahayd laakiin se taasi ma sii ahayn halis badan sameysay lahayn laakiin labada dhacdo ugu saameyn badan waa tahay daawadayaashan u saari doona intaynaan u gudbin kulanka labaad bal dhacdooyinkani oo Mustafa Indo nala wadaagay daawadayaasha waxa laga yaabaa qaar kamid ah inay kugu taageeraan oo yiraahdaan Allaah uu dhacdooyinkan soo bandhigaya waa dhacdooyin sax ah bal marka hore daawadayaal nala daawada dhacdooyinkaasi ka dhacay garoonka Hargeysa Stadium kulankii dhexmaray Goodir iyo Waxol waatahay aan kugu soo noqdo mar kale Mustafa kulankii dawladda hoose iyo ganacsiga waa kulan kamid ah kulamadii horyaalka kulamadii 15aad ee ka dhacay garoonka Hargeysa Stadium kulankaasi bartaada Facebook waxaad ku soo bandhigtay inuu qaladaad aad u badan ay ka dhaceen gudaha garoonka bal anagii daawadayaashana la wadaag waa si wanaagsan ciyaarta labada dhex maray dawladda hoose iyo wasaaradda ganacsiga wuxuu ahaa kulan ay ku dhamaatay guusha ay ku raacday kooxda dawladda hoose mirarkii 16aad penalty ka dhacay garoonka ayaa waxa la faawalay ciyaaryahan Khadir Mustafa oo dhiilanka lagu dhex faawalay way u dhawaayeen labada garsoorba ma aysan qaban mirarka dhacdo kale ku xigteen waxa ahayd isla mirarkii ku xigay 17aad chance ay sameysteen wasaaradda ganacsigu oo isku dhufsadeen ninkii weerarka iyo ninkii dhexda ahaayo loo daba tuuray oo goolku u dhashayba way laageen ninkii weerarka uu laagay uu dhashay oo gool caadi ahaan lahaa ayaa laakiin say qabteen offside-kii oo qabtay ninkii calaamadaha offside qabtay laakiin marka dib looga daba tago offside ma aysan ahayn xabadaasi waxa kale oo ku xigtay laba penalty kale oo ka dambeeyay mid wuxuu dhacay mirarkii 18aad ka kalena wuxuu dhacay mirarkii 17aad labadaba midna waxa lagu galay Khadir Mustafa isla kii markii hore lagu galay oo dhamaadkii uu ahaa mirarka 17aad ka kalena in ka kale weeraraha ugu ciyaarayay wasaaradda ganacsiga lagu galay oo isagoo kubadii eriyanayo ka faa'iideystay isla chance-kii baa xagga dambe laga bush gareeyay saasaana ku dhacday labada penalty laakiin se lama qaban dhacdooyinka bal anagii daawadayaasha muuqaalkaasi dib u daawan doona iyagaana ka jawaabi doona wixii dhacdooyin ka dhacay garoonka Mustafa wali xiriirka kubadda cagta Soomaaliland xiriir ma kula soo sameeyo ma lagu yiri dhacdooyinkan aad soo bandhigayso waa dhiirigelin baad u yihiin garsoorka ama dhinaca kalaba ma ku yiraahdeen dhacdooyinkani baraha bulshada la wadaagin anagana la wadaag in xiriir ma kula yeeshay may horta xiriirku aniga toos ah lama soo hadal
weli way la soo hadleen xubno kamid ah garsoorku ay laftoodii ku dhiirigeliyeen ay yidhaahdeen arrintaas waa arrin wanaagsan in laga daba tago qaladaadkii in si garsoorkii maalinkaa qaldamay maalinka ku xiga dee uu xil weyn iska saaro oo dee uu fiirsi badan uu sameeyo taxadir badan sameeyo way jiraan laakiin qaar kale oo ku dhaliilaya inkastoo dee qofku markuu dee hawshaas oo kale u dhaqaaqo labadaba waad helaysaa mid ku dhaliila iyo mid kugu garab galaba dee marka labadaba waan kala kulmaa labadaba qaar dhiirigeliya iyo qaar idhahda waa arrintaasi way ma fiicna mustafa dad badan waxay isweydiinayaan mustafa waxa uu bartiisa facebooka ku baahiyaa qaladaadka ay sameeyaan garsoorka ciyaartaasi dhexdhexaadinaya ciyaartu waa 90 daqiiqo 90 daqiiqo mustafa waxa uu ka doorbidaa inuu 4 dhacdo oo garoonka kamid uu baahiyo una intii kale wanaagsaneed aanu soo bandhigin dadka ayaga maxaad kaga jawaabaysaa taa waxaan kaga jawaabayaa horta dee qofka garsoorihi waa bini aadan oo dee uuna qaldami karaa uuna sixi karaa iyo labadaba dee uu sameyn karaa marka wixii qaladan soo dhigay ama dee wixii dhacdo wax ka bedeli lahayd natiijada ciyaartan soo bandhigay maahane inta kalena waa inta saxda ah garsoorku sida fiican u hayay hadday xanaaqado kale noqoto hadday waxyaabo kale noqoto wixii hadduu xataa rikoodho qabto oo rikoodhahaasi rikoodho sax yahay dee waa saas sax ku taho ciduma soo dhigo laakiin wixii yar waafaq yar dee khilaaf ku jiro unbaan soo dhigaa waa tahay garsoorka kubadda cagta caalamka imika sanadadii ugu dambeeyay waxay isticmaalayeen 2 sano 3 sano ugu dambeeyay waxa la isticmaalayay adeeg caawiyaha garsoorka video assistant referee oo loo soo gaabiyo VAR ma isleedahay horyaalkii Soomaaliland mar hadii uu dhaqaaqay oo xawaarahaasi uu ku socdo waxay u baahan yihiin garsoorayaashu adeeg caawiya ma isleedahay wala gaadhay waqtigeedii waa run horta taasi way jirtaa inkastoo imika xiriirka dambe cusub ee la doortay uu yahay xiriir aad u shaqo fiican oo dee dadaal badan sameeyay iyagoo muddo yar joogay markiiba ku dhawaaqay inay qabanayaan horyaalkaas ka kooban 3 level heerka koowaad iyo heerka labaad heerka saddexaad oo anigu waxaan aad baan soo dhaweyn lahaa arrinkaas garsoorkuna way u baahan yihiin in uu caawiyo video assistant referee-gaasi waan soo dhaweyn lahaa waan aad u fiican waa tahay mustafa intaynaan u gudagelin kulamadii kale bartaada facebooka ku soo bandhigtay tiri allalehe waxay ila muuqdeen inay qaladaad ahaayeen waxaan bartaada Facebook ku arkay intii aan daalacanayay tababarayaal iyo ciyaaryahanno kugu xidhan iyagu tababarayaasha qaladaadka marka ay dhibsadaan oo kale ay ciyaartii dhamaato ma kula soo xiriiraan oo ma ku yiraahdaan kulanka qaladaadka iyagii ka dhacay maxay soo bandhigay way sameeyaan way la soo hadlaan way la soo xiriiraan waana dee soo dhaweeyay qofka dee ra'yigiisa inaad ixtiraamtaa wanaagsan way la soo hadlaan oo waxay u yiraahdaan markii maxayaad waxaas dhacay ka maxad uga qabowday kaas soo dhacay ka maxad uga qabowday dee waan isla eegnaa marka ama dee waxay noqotaa qalad ama xabada anigu arki waayay ama xabada anigu aanu haysteen sax tahay qalad tahay waa inay toosiyaan oo waan ku soo daraa ama xabad markaan isla eegno marka dambe ay gartaan inay xabadaas garsoor ku saxsanaana ay noqotona waa Faransa kaga qaadnaa isleedahay TV kala wadalka ka dhex faratay waa tahay waa in 90 daqiiqo ciyaar mustafa aad waqti geliso oo habayso oo soo jarjarto waqti badan bay qaadataa horta ciyaarta daawashadeedii waynu isla garanay soo bandhigitaankani maadaa sameeya mise qof kale kugu caawiyo ku soo kookooba dhacdooyinka horta waa runoo ciyaarta waan dhameystaa waan bilowdaa waan la dhameystaa hadda kulli taa dadkan kala simanahay waxaan dheer oo keliyun intaan note-ka qoranayo ciyaarta qaladka ka dhaxlaca ciyaartaas markay dhamaato meelaha 6 xoogaa ama 6 ruuc 6 20 6 barka meelahaas wixii ka dambeeya ayaan soo jaraa kadibna saasaan kusoo post gareeya waqti badan ugu qaatay ilaa wax ku qaata hadii ugu badato 30 mir ama 45 mir mustafa imkan waxaanu eegi doonaa mid kamid ah kulamadii wareega 14aad ee horyaalka heerka koobaad oo bartaada Facebook aad ku baahisay inay qaladaad badan ka dhaxdhaceen waa dawladda hoose iyo ciidanka asluubta kulankii ugu horeysay ee tababaraha oo leelinay Mustafa Khamle bal dhacdooyinka aad soo bandhigtay anaga daawadeeshana la wadaag waa si wanaagsan dhacdadaas waxay dhex martay labada kooxood ee saas sheegtay asluubta iyo dawladda hoose waana kulankii ugu horeeyay macallin Mustafa Khamle uu la wareegay tababarka ciidanka asluubta Chaniska ugu horeeyay wuxuu ahaa mirka halfkii hore intaan u dhicin 45aad ayaa rekoorda ka dhex dhacay penaltiga lagu galay ciyaaryahan Khalid Cali oo ciyaarada dawladda hoose mirkaas penaltigaas aad buu ugu dhawaa garsooraha waxa hayay Cabdi Xasan Dheere oo halkan ka salaamayo muusan qaban laakiin waa uu sii daayo way socotaa buu yiri isla Chaniskaas isla mirka ku xigay kubadii nin kale oo ciyaarada asluubta qabsaday Chanis dheer buu furay oo tuuriyay
weeraryahankii xagga soke offside D-line-ka dhiida ayuu xagga soke ka soo xigay qofka weeraryahanka markuu dhiida xagga soke ka soo xigay offside lama qabto wuu tuuray kubaddii isagoo ka soo xigay xagga dambe laakiin difaacyahanka uu ka dambeeyay ninkii calamadaha ahaa dee ninkii difaac ahaa unbuu eegtay oo offside ku beesay bartamaha garoonka ma uusan eegin kubaddii dhinkii markuu tuuray weeraryahanka qabsadayna offside buu calaamadiyay saasi taasina ku dhacday oo dee chance wanaagsan bay ahaan lahayd oo dee 1-1 ayuu goolada kula bixi lahaa chance labaadna isla kaas markay isla ciyaartaas waxay ahayd ciyaartaas markii 26aad ayaa wax ka dhacday dhacdo foul ahayd ciyaaryahan dowladda soo ciyaara si xun loo foulay foul direct iyo qofku beer waa la kala gartaa marka qofku kubadda ku ataagayo kubadda ka dilayo marka ciyaaryahanka toos u ataagayo marka ninkii weeraryahanka uu ataagay uu kubadda taa kale ku qabtay halka jilibka ka hooseeyo ka qabtay uu ku mutaysan lahaa kaar casb ku mutaysan lahaa laakiin sama uusan siin advantage buu sii daayay kamanu daba tagin qaladkii sidii baan ku dhaafay tooda maysaana waxay ahayd kubad aan bixin laakiin soo garsoor ku qabtayna baxday oo chance fiican ahaan lahayd oo chance goal u dhawaan lahayd waa tahay bal marka hore aynu daawadayaasha aynu la wadaagno muuqaalkaasi iyo dhacdooyinkaasi aad u arkaysay in qaladaad ahaayeen ee ka dhacay kulankii dowladda hoose iyo asluubta kulan ka tirsanaa horyaalka heerka koobaad wareegiisii 14aad in la daawada waa tahay Mustafa dhacdooyinkan aad soo bandhigaysaa dhowr dhacdo iskugu jiraan in aad adiga laftaadii go'aamadii uu garsoorku qaadanayay aad qayb ka tahay oo leedahay kubaddaasi waxay noqon karaysaa in kaar cas uu bixiyo kubadda potential aad chance oo la abuurayo leedahay kubadda hadii loo sii deyn lahaa waxay noqon karaysay ama loo filan karay inay chance goal lagu dhaliyo ay noqoto xariiqdii 18 ka dhexdeedii baad leedahay kubaddaas waa record waxay u baahan tahay dhacdooyinkan aad soo bandhigaysaa inuu qofkani aqoon iyo xeel dheeri u leeyahay garsoorka oo garsooraha kubaddan uu leedahay wuxuu ku siin karaa casaan oo kale isaga dhinaciisa kale in tababarkiisa iyo aqoontiisu ay sheegayso inaanu ahayn kubaddan aanay casaan ahayn marka adigu aqoontaadii waxaad tiri xirfadii waan xiiseeyaa una aqoon tababareed aqoon garsoor ma lihi misleedahay marka iyaga laftoodii shaqadii garsoorka imka gacanta ku haysa may horta waxa jirta kubadda cagta waa la wada daawadaa ee ummadda Ilaahay way ka dhaxaysaa kubadda wada faanka badan ee la wada jecel yahay waana la wada daawadaa waxaan aaminsanahay qof walba daawada badankeeda inuu shuruucaheeda inta basic ah wada yaqaano wixii si advanced ah mooyaane laakiin wixii iska basic iska dhow waa la iska wada garanayaa way la tahay aniga fikirkayga markaan dhacdada calaamadsado ama aan soo gooyo kuma degdego markaba ma soo dhigo go'aanka markaba ma qaato dad baan kala tashadaa marka hore aan eegta dib baan hadana u fiiriyaa marka u dambeysana dad baan kala tashadaa oo dhaxlaa waniyo taas maxay idin la tahay taas ma record ay tahay taas ma casaan bay tahay taas ma offside bay tahay waan kala tashadaa saasana ku soo dhigaa marka ma dhacday go'aamo aad bartaada Facebook aad intaad soo bandhigtay dadka la wadaagtay markii dambe adiga kaaga soo noqday dareen ah inaanay kubaddaas oo kale aanay gool ku lagahayn way jirtaa way dhici kartaa waayo meeshaba waxaan u soo dhigayaa waa in lagu falanqeeyo oo qofku fikirkiisa uu ka dhiibto qof baa oran kara waan ku guracsanay fikirkaasi taasi saasay ahayd qof baa fikirkiisa ila qof walba fikir buu leeyahay oranaya ma aha offside ma aha saas baan ku soo dhigaa saasana go'aanka lagu qaataa waa tahay waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena dhacdooyin badan baad bartaada Facebook kula wadaagtay daawadayaal badan oo in dadka qaarna ay kugu taageeraan sidaan bartaada ka arkay ciyaaryahanna badan ay ku xiran yihiin inteen leeg baad isleedahay waad sii wadi karaysaa inaad dhacdooyinkan soo bandhigto waxaan horta waqtigan bilaabay waxay ahayd kol horyaalkan uma la bilowday waxaan rajaynayaa in kulley
kulligan waxaan soo dhigan kuna waxaan u hagaajin si qaladaadkii hore dhacay looga daba tago wixii dambana insha Allah ay ku taxadiraan inaan aanay u dhicin mar labaad marka insha Allah waa intaan uu siisa ka harsan baan sheegay insha Allah waa tahay ugu dambeyntii maxaad faraysaa xiriirka kubadda cagta Somaliland iyo gudida sare ee garsoorka kubadda cagta waxaan farayaa wasoo jeedin waxa weeyaan horta garsoorkan waa garsoorka waxaan jeedaa xiriirkan waa xiriirka ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta ee Somaliland waayo waxyaabo taariikhiya oo hore aan uga dhicin ay sameeyeen oo fara badan wali muddo gaaban ay ku sameeyeen ugu horeeyaan diiwaangelinta kooxahan saddexda level kala ah horyaaladoodii afeegiyo socda adigu shaqo fiican bay wataan oo ay qabaan waxaan soo jeedin lahaa tababaro dheeraadana la siiyo maxay hayday video assistant referee-gana loo sameeyo oo la garab istaago intaas baan u fari lahaa insha Allah waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni gaarka ahaa ee aynu kaga hadlaynay ciyaaryahan hore Mustafa Indo oo kamid ah ciyaaryahanadii hore caasimadda Hargeysa isla markaasina iminka bartiisa Facebook ku soo bandhiga hadba qaladaadka ka dhaxdhaca gudaha garoonka Hargeysa Stadium Mustafa aad baan kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga aad baad mahadsantahay